Soo dhawaad saaxiibayaal mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkana maantay wuxuu ku saabsan yahay isla delivery-ga aan muuqaaladeen hore ku soo aragnay. Application-ada isticmaalna way kala gedisan yihiin. Muuqaalada horena waxaan ku soo tusay dhowr application oo kala gedisan sida Just Eat, Uber iyo Deliveroo. Marka maanta waxaan isla ogaanay application la yiraahdo Deliveroo. Waa application laga leeyahay waddanka UK waana kan ugu badan ee marka waddankan la joogo aad iyo aad loogu shaqeeyo. Waxaa isla arki doonaa ama isla fiirinaa halkii dalab inta lagu qaado mararka uu busy yahay mar waxa jirta aad iyo aad mashquul u yahay. Markaasna waxaa siyaada lacagta halkii dalab lagu qaadiyo marka qiimahaas isla arkayna sidoo kale halkii dalab waqti ahaan intuu qaadan kara laftigeedana waa isla fiirina. Waxaa intaasi dheer maalmaha mashquulku application-kan u yahay inay kaliyihiin Sabtida iyo Axadda gelinkii hore iyo maalinka Jimcada gaar ahaan gelinka dambe. Intaa markii laga soo tago hadda xilligu waa galab gaab maqribkaas soo dhow bacdal maqrib ee shaqada noo bilaabanaysaa. Caawa marka horreysay waxaan tusayaa anoo waqti habeenimo shaqaynaya baad arki doontaan dhammaan wax kasta oo macluumaada oo shaqada ku saabsan baan idin la wadaagayaa. Hadda maqribka waa soo tukanay waxaan soo galay suuqa waxaan isku dayay orderkan oo horeeyay inaan helno ama aan qaadano caawa habeen Sabtiya saa idin soo sheegayba Sabtida Axadda gelinkeeda hore iyo Jimcaha waxay ka mid yihiin waqtiyada ugu mashquulka badan. Marka hadda waxaan noo soo dhacay dalabkeen oo horeeyay waxaan aadayaa maqaayadda dalabkaas uu ka soo dhacay. Maqaayadda waxa la yiraahdaa Five Guys waa soo gaaray. Maqaayaddan badanaa waxaa lagu sameeyaa beef burger ama burgerka qaybtiisa hilibka chicken burger waxa ma sameeyaan soo kala jawaanada arkaysan oo kale waxa ku jira lows oo qofka markuu maartay dalbado maqaayadan dalabkeelo kale lowskaas u qaadan kara si free ku isticmaali kara. Hadda waa arkaysan caawa kale sameeyay maadaama jaamta oo kale meesha delivery badan baa taagan hadda orderkayga waa helay. Haddaan qaadanaya orderka marka waa la iskaan gareeyaa markaan iskaan gareeyo oo aqbalo kadib wuxuu ii dirayaa qofkii client-iga ahaa oo alaabtan iska lahayd. Marka hadda alaabtii waa soo qaaday waxaan u jahaystay dhankii macmiilka xaafad xoogaa aan fogeyn marka waqtigan inta igu qaadatay iyo dalabka lacagtiisa waxaan kula wadaagayaa muuqaalka qaybtiisa dambe. Waxaan rajeynayaa inay ila joogtaan meesha hadda aan marayo oo wada xaafadeed xoogaa muddo leedahay badanaa wadooyinka xaafadaha Ingiriiska ama UK waxa loo isticmaalaa laga solar ah kuwaas oo aan iftiin badan lahayn. Hadda arkaysan iftiin badan ma muuqdo xoogaa dhulku waa mugdi xigeen cabaar kadib insha Allah waxaan rajeynayaa qofkii client-iga macmiilka alaabta iska lahaa inaan gaaro kadibna waa isla arkaynaa bal subax hal noqdo. Okay. It's 85. Thanks, man. What? Orderkii ama dalabkii aan wadnay marka hadda saa u dhiganay waxa ii soo dhacay dalab kale. Waxaa laga qaadayaa meeshan hadda alaabtaan dhigay maqaayad aad iyo aad ugu dhow waxaana la geenayaa oo laga soo dalbaday meesha suuqa ahayd aan ka shaqeynaya xaafad ku taala. Meesha hadda marka aan inta alaabta keenay anoo faaruq alaaba la hadda alaaba inta sii qaataan dib u laabanaya taasoo ka dhigan soo socodba inaan lacag sameynayo ama aan faa'iido joogo. Xoogaa baad soo socday hal daqiiqo camal meesha alaabta aan keenay maqaayadda aad iyo aad ugu dhoweed oo maqaayad xaafadeed. Maqaayadan alaabta ka qaadaya kadibna meesha suuqa ahayd aan ka imid baan dib ugu laabanaya anoo alaabta hadda meeshan aan ka qaadayo waa fish and chips wax ka mid ah UK marka la joogo cunooyinka dadku aad iyo aad u jecel yihiin gaar ahaan dadka dhalinyarada ah. Hadda wadadan aan ku soo dhacay alaabtii waa soo qaaday wadadan wax moodaa wadada hore xoogaa inay ka iftiin badan tahay sababta wadadan wada xoogaa weyn goobo ganacsina dhinacyada kaga yaalaan marka iftiinka goobaha ganacsiga ka imaanaya baa qayb ka ah ilayska jira. Inta haddii aan ka gudbo aan idin la wadaago orderkii hore aan soo qaaday inta aan ku soo qaaday iyo waqti ahaan intuu qaatay daqiiqad ahaan wuxuu qaatay 19 daqiiqo. Lacagta pound-tana waxay noqotay orderka dalabkiisa 7 pound iyo .60b. Haddii dollar loo bedelaa waxay noqonaysaa $10 iyo 12 senti. Waxaa xasuusin mudan mar walba application-kan inuu saas oo kale u saahayn oo faa'iido saas oo kale mar walba aan laga sameynin. Caawa maadaama Sabtida aad iyo aad mashquul yahay waa markuu busy yahay taasana keenaysa in faa'iidada degdeg ah kale markaas kale laga sameeyo. Sidoo kale waxaa sii raaca khibradda u leedahay shaqadan inta aad ka shaqeynayso oo kale haddii aad tahay qofka cusub oo kale faa'iidadaas inaad ka sameyso xoogaa maartay way adag tahay. Laakiin qofka hadduu xoogaa ku jiro oo kale maadaama carriga dhan kala fahansan yahay oo kale oo maqaayadii hore ka garanayo deegaankii meesha alaabta la geeyay hore ka fahansan yahay ama qiyaas ahaan macnaha uu dusha ka yaqaan oo kale way u sahlan tahay sidaan oo kale inuu maartay hadda ku idmayo uu u faa'iido helo. Inta haddii aan soo dhaafno hadda saaxiibayaal alaab baa wada saa idin soo sheegayba alaabtii hore meeshii aan dhigay maqaayadii u dhoweed aniga alaab ka soo qaaday
marka hadda waxaan ku jahaysanahay alaabtii qofkii iska wax yar baan u jirnaa cabaar kadibna waa gaaraynaa. What's the code? 78. ugu dambeyn dalabkii waa soo dhigay, wuxuuna ahaa dalabkii ugu dambeeyey ama orderkii ugu dambeeyey. Hadda waxaan u jahaystay ama aaday dhanka xaafadda. Waxaan ahay dheelmad inta haddii aan sii dhaafo saaxiibayaal, haddii UK aad joogtid oo aad tahay qof sharci haysta, aad rabtid maaragtay inaad applicationadan sida Uberka, Deliveroo iyo Just Eat inaad furatid oo shaqooyinka noocaan wax way maaragtay aad ku shaqaysid. Xataa haddii shaqo kale haysto kale wax way fursad bay ku tahay mararka qaarkood part time baa ka dhiganaysaa, ama mararka qaarkood marka shaqada kaa soo dhamaato kale baad intaa shaqo kale helisid baa tan oo kale kasii shaqaysan kartaa. Marka mar walba ma ahaanaysid qof cidlo kusoo dhaca, mar walba waxaanaysaa haddii shaqooyinka noocaan oo kale ama application noocaan kale ay kuu furan yihiin oo kale, qof walba fursadiisa ay taagan tahay baa ahaanaysaa. Marka haddii aad u baahan tahay applicationadan inaad furatid, waxaan diyaar u ahay inaan kaala qayb qaato ama